qaybta saddexaad ee taariikhda kooban ee Soomaaliya waxaynu ku soo qaadan doonaa intii u dhaxaysay 1991 ilaa 2005 Juun 27keedii 1991 Siyaad Barre ayaa ka baxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho jabhaduhuna ay halkaas qabsadeen November 17keedii 1991 awood ku dagaalankii u dhaxeeyay qabqablayaashii dagaalka ee Maxamed Faarax Caydiid iyo Cali Mahdi Maxamed ayaa isku rogay dagaal kumanaan shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkaas March 3keedii 1992 qabqablayaashii iska soo horjeeday ayaa wada saxeexay heshiis xabad joojin ah oo ay abaabushay qaramada midoobay laakiin waxay qabqablayaashu ku heshiin waayeen sida loo maareeyo xabad joojinta 24 Abriil 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in Soomaaliya loo diro 50 qof oo korka ka ilaaliya xabad joojintii la kala saxeexday September 19keedii 1992 qabqablaha dagaalka ee Maxamed Faarax Caydiid oo ku laabtay Muqdisho isla mar ahaantaana diiday in la keeno ciidamo nabad ilaalin ah December 3keedii 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo hubeysan oo nabad ilaalin ah oo hogaaminaya Mareykanka ciidamada badda ee Mareykanka oo caga dhigtay xeebta Muqdisho ayagoo watay magaciyaha hawlgalkii rajo soo celinta June 15keedii 1993 wadahadal soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lagu qabtay Addis Ababa ayaa maleeshiyooyinkiis ka soo horjeeday Soomaaliya ay ku kala saxeexdeen heshiis ay ku joojinayaan dagaalka heshiiskaas oo kamid ahaa heshiisyo badan oo ay kala saxeexdeen May 4keedii 1993 Mareykanka ayaa hogaaminta ciidanka hawlgalka ka waday Soomaaliya ku wareejiyay qaramada midoobay October 3keedii 1993 18 ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo hal askari oo Maleesiyaan ah ayaa la dilay waxaana la dhaawacay 74 Mareykan ah kadib markii Muqdisho lagu soo riday laba helikobtar oo Mareykanku leeyahay meydkii askarta la dilayna lagu jiiday wadooyinka Muqdisho waagii dambana arintaas waxa laga sameeyay filim la baxay Black Hawk Down 28 March 1994 howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya ayaa si rasmi ah loo soo afjaray June 1995 Maxamed Siyaad Barre ayaa ku geeriyooday magaalada Lagos ee Nigeria Siyaad Barre wuxuu noolaa intii u dhaxaysay 1919 ilaa January 1995 28 February 1995 ciidamada badda ee Mareykanka iyo ciidamada Talyaaniga ayaa ka qayb qaatay daadgurayntii ciidamada qaramada midoobay laga soo daadgureeyay Soomaaliya August 1996 Maxamed Faarax Caydiid ayaa u dhintay dhaawac soo gaadhay Caydiid waxa uu noolaa intii u dhaxaysay December 15keedii 1934 ilaa August 1996 May 2keedii 2000 shir Soomaalida lagu heshiisiinayay ayaa ka bilowday tuulada Carta ee dalka Djibouti shirkaas oo ay ka qayb galeen in ka badan 2000 oo Soomaalida hogaamiyaashooda ah August 13keedii 2000 waxaa dibadda loo taagay dawladii ku meel gaarka ahayd dawladdaas oo la siiyay muddo 3 sano ah in ay heshiis ka dhaxdhaliso dadka Soomaaliyeed waxaa dawladdaas madaxweyne u noqday Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo ra'iisul wasaare Cali Khaliif Galeer June 5keedii 2001 Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa ninkii sameeyay calanka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada May 3keedii 2002 Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa ku geeriyooday magaalada Pretoria ee dalka South Africa Cigaal waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhaxaysay 16 June 1960 ilaa 12 July 1960 Cigaal waxa uu noolaa intii u dhaxaysay August 15keedii 1928 ilaa May 3keedii 2002 October 15keedii 2002 shirkii 14aad ee nabadeynta Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Eldoret ee dalka Kenya September 15keedii 2003 waxaa lagu heshiiyay ahdiga ku meel gaarka ah ee Soomaaliya in dawladda la dhisay ay codbixin dalka Soomaaliya ku gaarsiin doonto muddo 5 sanadood ah taasoo ku xigta markii uu dhamaaday waqtigii 3 sano ah ee dawladdii hore ee ku meel gaarka ahayd dawladda cusub waxaa loo bixiyay dawladda federaalka ku meel gaarka ah bishii August 2004 wafdigii ka qayb galay shirka Soomaaliya oo ka socday Kenya ayaa doortay 275 xildhibaan kuwaas oo lagu soo xulay hab qabiil oo loo bixiyay 4.5 August 10keedii 2004 baarlamaanka ku meel gaarka ah ayaa Cabdilaahi Yuusuf oo ay Itoobiya taageersan tahay ayay u doorteen madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya November 3keedii 2004 madaxweynihii ku meel gaarka ah ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Cali Maxamed Geedi December 2keedii 2004
ra'iisul wasaaraha la doortay Cali Maxamed Geedi ayaa dhaariyay xukuumaddiisii oo ka koobnay 27 wasiir. June 31keedii 2005 waxaa magaalada Muqdisho ay dabli hubeysan toogasho ku dileen sarkaal Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Hersi Cumar, taasoo loo macneeyay in lagu wiiqay awoodda xukuumadda cusub. Midowga Afrika ayaa kulankoodii lagu qabtay Nigeria waxa ay ku ansixiyeen in Soomaaliya loo diro ciidamo 5 dal ah oo ka tirsan Afrikada Bari si ay dawladda cusub ee Soomaaliya ugu kaalmeyn lahayd sidii ay ugu tagi lahayd Soomaaliya. 5taas dal oo kala ah Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Suudaan. February 9keedii 2005 Cusmaan Cali Caato oo hay'adda Newton tilmaamtay qabqablaha dagaalka ahna wasiir ka tirsan dawladda ayaa Soomaalida waxa ugu baaqay in ay weerar kala hor yimaadaan ciidamada nabad ilaalinta oo taageeraya dawladda Soomaaliya. ciidamadaas oo ka imaanaya dalka Itoobiya ee xurgufta taariikhda ay ka dhaxaysay Soomaaliya. February 24keedii 2005 madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa doorashadoodii kadib markii ugu horeysay ku laabtay Soomaaliya waxayna ka degeen magaalada Jowhar waxayna safarkaas ku soo mareen beledweyne Gaalkacyo, Boosaaso iyo Baydhabo. 17kii Maarch gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ku meel gaarka ah Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kulan uu Nairobi ku yeeshay baarlamaanka kaga dhawaaqay in baarlamaanku isku raacay in aan Soomaaliya la keenin ciidamo ka socda wadamada safka hore kadib markii loo qaaday cod fartaag ah. Waxyar kadib markii ay suurtagali weysay dagaalna ka dhacay in codka qarsoodiga ah loo qaado ciidamada safka hore in la geeyo Soomaaliya, waxaana soo xaadiray xildhibaano gaaraya 217 xildhibaan. waxaa diiday safka hore 156 waxaana ogolaaday in la keeno safka hore 55 xildhibaan halka 6 ka midana ay ka gaabsadeen. sidaas ayaana lagu ansixiyay in baarlamaanku diiday ciidamada wadamada dariska la ah Soomaaliya. kadib waxaa baarlamaanka ka dhacay dagaal feer iyo gacan iyo laad isla dhacay, kuraasta la isku adeegsaday. qayb xildhibaanada ka mid ah ayaana halkaas dhiig lagaga daadiyay. Abriil 29keedii 2005 ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi ayaa markii ugu horeysay u duulay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si uu u xaliyay khilaafka dawladda soo kala dhaxgalay ee ku saabsan halka ay dawladdu gali doonto iyo arrimaha la xiriira ciidamada nabad ilaalinta. May 3keedii 2005 qarax ayaa ka dhacay garoonka ciyaaraha ee Muqdisho, Stadiumka Muqdisho, halkaas oo uu ku khudbadeynayay ra'iisul wasaare Geedi. qaraxaas oo keenay dhimasho iyo dhaawac. May 11keedii 2005 xildhibaan tiradoodu dhan tahay 152 ayaa Nairobi ku yeeshay kalfadhi uu dalbaday madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaarka ah ee xilligaas Cabdilaahi Yuusuf. kalfadhigaas waxaa baarlamaanku ku ansixiyay in dawladdu tagto Baydhabo iyo Jowhar iyo in ciidamo ka socda Midowga Afrika, Suudaan iyo Uganda iyo Carab la geeyo Soomaaliya. kulankaas waxaa ka maqnaa gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan, waxaana shir gudoomiye ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Maxamed Cumar Dalxa. May 12keedii 2005 Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah afhayeenka baarlamaanka ku meel gaarka ah ayaa sheegay in uu aadi doono Muqdisho, isla mar ahaantina xubnaha kale ee baarlamaanka ku qancin doono in ay u raacaan Muqdisho. halkaas oo uu sheegay in kulanka labaad ee baarlamaanka lagu qaban doono. waxaa si cad u soo shacbahay kala qaybsanaanta DF ay ku kala qaybsan tahay meesha ay degayso dawladdu, Muqdisho mise Jowhar mise Baydhabo. May 13keedii 2005 Midowga Afrika ayaa Addis Ababa kaga dhawaaqay in ay Soomaaliya u diri doonaan 1700 oo askari kuwaas oo ka qayb qaadan doona ammaanka dib u soo celinta dawladda Soomaaliya ee lagu dhisay Nairobi. ciidamadaas waxaa habeennimadii Khamiista May 12keedii 2005 ansixiyay qaybtii Midowga Afrika u qaabilsanaa ammaanka. ciidankaas waxay ka iman doonaan 2 dal oo kala ah Uganda iyo Suudaan. ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka meel gaarka Cali Maxamed Geedi oo marka go'aankaas dhacay ku sugnaa Addis Ababa ayaa sheegay in Soomaaliya ay aqbashay in ciidamadaas la geeyo. isla maalin ka hor ayay ahayd markii Addis Ababa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya in Muqdisho ay joogaan wax ugu yeeray argagixiso. eedayntaas oo caado u ah Zeenaawi oo aan marna xusin qadiyada dhabta ah ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, taasoo ah dhul iyo dad ay gumaysatay Itoobiya. dawladda federaalka ku meel gaarka ah oo bilowday Geedi ay ugu guurayso Soomaaliya kana guurayso Nairobi ay ku sugnayd 9 bilood. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah Cabdilaahi Yuusuf ayaa khudbad sagooti ah waxa uu jeediyay reer Kenya, halkaas oo ay dawladda Soomaaliya ku sugnayd ilaa markii la soo magacaabay October 2004. waxaa halkaas ku sii sagootiyay madaxweynaha Kenya. sagootintaas oo lagu qabtay guriga looga arimiyo Kenya waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi iyo xubno ka tirsan labada gole ee DF-ka. madaxweynaha waxa uu u safray dalka Qatar, ra'iisul wasaarahana Jowhar. baarlamaanka oo la kala diray June 2keedii 2005 iyo golaha wasiirada waxay u safrayaan gobolada kala duwan ee dalka. June 25keedii 2005
dowladda Yemen ayaa ku guuleysan weysay inay heshiis gaaraan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ku meel gaarka ah kadib wadahadallo ay dowladda Yemen uga furtay magaalada Sanca ee dalka Yemen. kulamadaas oo la isku soo horfadhiisinayay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ku meel gaarka waxa Yemen ka dhaceen 22kii bishii 6aad 2005 iyo 22kii bishii 6aad 2005 inkastoo 23kii bishii 6aad 2005 madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf isaga kaligiisu madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Yemen Cali Cabdalla Saalax halka gudoomiye Shariif Xasan uu ku qaabilay qolkii uu ka deganaa hotel Taj Saba. June 3keedii 2005 ciidamo ka socda dunida islaamka oo nabad ilaalin ah oo loo dirayo Soomaaliya sidaas waxa lagu go'aamiyay kalfadhigii 13aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamka oo ay ka soo qayb galeen 54 dawladood oo ka mid ah 56 dal ee xubnaha ka ah ururka islaamka. kalfadhigaas oo lagu qabtay caasimadda dalka Yemen ee Sanca June 28keedii ilaa June 3keedii 2005 ciidamadaas oo ku shaqeyn doona magaca qaramada midoobay. waxa kale oo isla kulankaas lagu go'aamiyay in la sameeyo guddi ka socda ururka islaamka oo soo arka sida dib loogu dhisi karo Soomaaliya. ilaawin like-ta haddii fiidiyowgan yahay mid ka codjabiyey subscribe si channelkan si aad u heshid fiidiyoyo iyo dokumentariyo xiiso badan waad ku mahadsan tahay daawashadaada.